ay ugu talagaleen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmooyinka 26 Juun iyo gacan libaax ee caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa kala qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargaysa iyo xoghayaha dawladda hoose ee caasimadda Hargaysa. Munaasabad degmada 26 Juun deeq kala duwan ay ku gaarsiinayaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadweynaha degmada 26 Juun waxaana ka warrameen deeqdan iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka kooban tahay. alaabta dalkaysaana cunto u badan aana timir buskud sabaayad iyo kalluun iyo sharaab iyo biyaba intana nooguma horeyso noogumana dambayso waan ka badinaynaa geel baan u joogay insha Allah laakiin muqmad ka dhigayno waxaan doonaynaa si aan u sii dadajino 700 kun oo sabaayada oo aanu sameynay in si degdeg loola gaaro ciidanka marka waa hordhacayagii hadaan nahay 26 Juun waanay badan tahay hawshana waanu wadnaa. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargaysa iyo xoghayaha dawladda hoose ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada 26 Juun waxay uga mahadnaqeen deeqdan ay soo gaarsiiyeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan halkan ku wareejinayaa taakulaynta ciidanka qaranka oo bilow ah waxaana noo hadhay geel badan oo nu qalayno nuqmad ka dhigayno. ugu horeyn Ilaahay baa mahad leh mar labaadka degmada 26 Juun oo halkan nagu guddoonsiisay raashin sabaayad kalluun caano ay ugu talagaleen ciidanka tukarra ka dagaalamaya jiida hore way mahadsan iyaguna. dhaga kalena dadweynaha degmada gacan libaax deeq ay iska soo wariyeen isla markaasina la doonayay in la gaarsiiyo ciidanka jiida hore. gudoomiyaha degmada gacan libaax ee caasimadda Hargaysa qaar ka mid ah haweenweynaha degmada gacan libaax iyagoo sheegay in hil iyo hooba la garab taagan yihiin ciidankooda. haweenweynaha degmada gacan libaax oo hormood ay ka yihiin ururada iyo qaybaha xaafadaha degmadu u qaybsan tahay ayaa iska soo ururiyay horaantii raashin ay ugu talagaleen ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland ee furta jooga. intaana maanta kuma eeka xooluhu way istaba soconayaan waanaanu garab taaganahay haddaan nahay haweenweynihii Somaliland aanu barbar taaganahay dawladayada ciidamadayada hiil iyo hooba aan la barbar taaganahay waxaan anagu hiil iyo hooba u huraynaa iyo naftayada iyo maalkayagaba ciidankayaga qaranka ee jiida jooga gardarana kulama socono mana lihin wax weerara oo laaya laakiin waxaan leenahay difaaca dadkiina iyo dalkiina wixii ku soo doonta mana soo raacina iyagaanu anagu aan ku kalsoonahay nagu filan taa ku bishaaraysta. xoghayaha dawladda hoose iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay sida wanaagsan ee ay isu abaabuleen ee ay ugu damqadeen ciidankooda jiida hore jooga. halka waxa yaala kalluunkii sabaayadii raashinkii biyihii intaba iyaga soo guriyay waanu mahadnaqnaa. mar labaadka hal qodob ayaan uga faa'iideysanayaa maanta miidiyahan dhalinyarada waxaan leeyahay dhakhtarada qabtoo dhiiga shuba si dhigkeeda loo helo loo gaarsiiyo ciidanka. waa guri dhan oo raashina oo dhammaystiran waxaan leenahay nagala wareega ciidanku ha ku nasto ha ku seexdo dhiigana waa idin shubanaa sidoo xogayuhu sheegay koow baan ahayn anaa shubaya dhiigayga inaynu shubno soo diyaar u bahay dhiiga inaan diyaar baynu nahay. gabagabadii deeqahaasi waxaa lagu wareejiyey sareeye guuto Saleebaan Barre Xasan oo ka mid ah saraakiisha sare ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa uu sheegay in ciidanka jiida hore ay u dhammaystiran tahay wax kasta oo ay u baahan yihiin balse ay arintana tahay in ay shacabku ay dhiirigeliyaan ciidankooda. waxaan uga mahadnaqay dadweynaha soo ururiyay deeqdaasi. abaanduule goor gaaban eregeed gaaban baa la yidhi hadal badan meesha inuma yaallo. waxaan kugu wareejinaynaa raashin oo ay dumarku iyo xaafadaha caasimadda magaalada Hargaysa isla garab taageen ciidankooda qaranka ee jiida hore ka dagaalamaya tukarra. waxa weeye sidii degmaba waan kugu soo bilaabaynaa waad naga gudoomisay waa gacan libaax iyo 26 Juun marka ku raashigan ku keenay. xoghayaha dawladda hoose oo ka wakiila dhammaan golaha deegaanka ururada bulshada aad baan idigu mahad celinaynaa. inkastoo ciidanka qaranka ay taakulayntiisu diyaar u tahay oo muxuu ahaa wax walba ay haystaan oo dawladda ugu tala gashay haddana dadweynaha iyo muxuu ahaa ururada bulshada iyo qof kasta oo muwaadin oo u damqanaya wixii uu soo gaarsiiyo waanu ka gudoomaynaa waana ugu mahad celinaynaa.